السلام عليكم أصحابي ومقال كيني حيوان ويديسي ددك caawinaad waana qaybtiisii saddexaad inta aan muuqaalka u gelin leegare sidoo kale nagu soo bir hadii aad nagu cusub tahay mahadsanid hadaba aan u gudagalno muuqaalkina maanta maskaan lagu magacaabo python ayaa gaajo daraadid u cunay shay gaariya 1 mitir hadaba qolada xayawaanada ay ku guuleystay inay ka saaraan waqtiga ku haboonaa xayawaankan afka qalaad lagu magacaabo raccoon ayaa ku xayirnaaday goobtan qashinka ahi iyagoona ka koobnaa 8 balse ninkan ayaa u fidiyay caawinaad waxaana u moodaa inay ku farxeen imaashaha ninkan isagoona bilaabay howlgalkii ugu saari lahaa xayawaankan goobta ay ku xayirnaadeen ma sheegi karo inta saac ay hooyadan dubkahay ay ku dul wareegisay goobtan maadaama ay ku dhexdhaceen ilmaheedii waxayna raggan bilaabeen inay daboolka ka qaadaan si ay uga soo baxaan goobtan ma jirin cid maqshay cabaadkan qurbacan yari ee dhexbartanka saxaraha ilaa uu ninkan u dul yimid goobtan godan rafaad badan ka bacdi wuxuu ku guuleystay inuu ka saaro dibna u kulansiiyay hooyadii iyo dhasheedii yareed xayawaankan raccoonka ahi ayaa ku dhacay shabaqa kubadda kolayga qolada dibdemiska ayaa u suurto gashay inay ka saaraan xayawaanka yari shabaqa dibna u kulmaan hooyadiis dhashan yari ee marodiga ayaa ku dhacday dhiiqadan balse wuxuu ilaahay ku caayintay dadkan iyagoona ka soo saaray dhashii yareed goobta bal qiyaas hooyo maqalaysa oohinta dhasheeda taas ku xirnaatay meel balse odaygan ayaa si xirfadeysan uga saaray dhashii yareed goobta isagoona dib u kulansiiyay hooyadii iyo dhasheedii yareed neefkan loodahi ayaa ku dhex xayirnaatay moolka biyahan nasiib wanaag cagaftan ayaa u suurto gashay inay ka saarto goobtan bisadan yari ayaa qarka u saarneed geerida dayaca iyo macluusha ka muuqata ilaa uu ninkan goobta ka qaaday bilaabayna inuu daryeelo dabcan waxaan filayaa waa qolada ku takhasusay cilmiga xayawaanaadka heerka qabowga oo gaaray 40 digri ayaa kooxdan dameeraha qabowgaas daraadii noqdeen kuwa barafoowa balse kooxdan dhalinyarada ayaa u kaxaysay goob ay ka galaan qabowga darani hooyadan marodiga ayaa dadka saaran gaarigan ka hor istaagtay wadada iyadoona weydiisanaysa caawinaad ka dhan ah dhasheedii yareed oo ku dhacday goob hog ah balse dadka ayaa u guda galay ilaa ay ka soo saareen bal eeg qaabka ay dib ugu midoobeen waa laxado aad ii soo jiidatay dabagaalahan ayaa waxa soo wajahday xaalad caafimaad daro gaar ahaan wadna xanuun balse ninkan ayaa sameeyay shaqo geesnimo isagoona sameeyay masaaj ama diligid wuxuuna siiyay wax uu cabo balse ninkan ayaa go'aansaday inuu la joogo dabagaalahan bal eeg wiilkan yari wuxuu ka caawinayaa hooyadan shibirtahi inay dhisato buul waaw waa muuqaal soo jiidasho leh bal daawo isbedelkan cajiibka eegan wuxuu noqday mid baralees ah ama dhinac jiidiya balse ninkan ayaa u bilaabay jimicsi socod ah isagoona aaminsanaa inay dhici karto mucjiso nasiib wanaag daryeel iyo xanaaneyn badan ka bacdi eegi yaraa waxa u suurto gashay inuu awoodo inuu socdo cajiibiga dheh dad badan ayaa iskugu yimid sidii loo caawin lahaa nibirigan si loogu laabsiiyo biyaha rusheen iyo wax kasta oo ay awoodaan way sameeyeen iyagoona isku dayay inay rusheeyaan intay ka imaanayaan qolada gargaarka waa muuqaal aad u qurux badan dad isku dayay inay caawiyaan xayawaankan cajiibka ugu dambeyntiina waxa dib loogu celiyay biyaha daanyeerkan ayaa isku dayay inuu meesha ka saaro bisadan balse way suurtoobi weeday ilaa ay ka timid gabadhan yari taasoo gudaha u gashay ceelka kana soo saartay bisadii yareed una sii dhiibtay daanyeerka waaw waa muuqaal aad iyo aad u qurux badan cid kasta waxa isku dayday qaabka loo badbaadin lahaa bisadan yari taasoo meesha ku xirnaatay in badan wayn adag tahay in si fudud looga saaro meesha maadaama ay meeshu tahay meel ciriiri ah bal aan isla daawano qaabka looga saaro goobta
ninkan wuxuu waraabinaya dabagaale haraad badan u hayay bal eeg qaabku u istaagsan yahay. Wow, aad ayaan u helay muuqaalkan. xaddiga qabowga oo daran deeradan ayaa webiga dhexdiisa ku barafooday iyadoona weyday awoodii ay ku socon lahayd ilaa uu ninkan ka saaray goobta. nasiib xumo jawiga oo ah mid aad u qabow ayaa bisdaha yaryari seentooda isku xirmeen. ninkan ayaa dib ugu laabtay gaarigiisii isagoona soo qaaday kafeegiisii oo yara diirna si uu ugu subo kadibna uu kala saaro. ugu dambeyntii uu ku guuleystay halkaas uguma tegine bisadii wuxuu u qaaday dhanka iyo guriga. bal eeg hooyada maroodiga ahi sida ay jirkeeda ugu dabooshay dhasheeda taasoo keentay inay gasho xaalad aan wanaagsaneyn iyadoona miir dabooshay. balse dadkan ayaa bilaabay wax kasta ay ku soo kici karto halka dhashi yareed ay u maleysay inaysan hooyadeed dib dambe u soo kici dooneen. nasiib wanaag hooyadii way soo kacday. ninkan kulumeystahi ayaa arkay darmaan yar oo ku dhacay dhiiqo taasoo keentay inay kici weydo. ugu dambeyntii uu ka saaray iyadoona la midowday waalidiinteed. dhashaan yar ee daanyeerka ayaa ku xayirnaatay birahan dhexdooda halka hooyada isku daysay inay ka ilaaliso dadka inay u soo dhawaadaan iyadoona u moodaysay inay wax gaarsiinayaan. balse dadkan ayaa doonayay inay meesha ka saaraan wayna ka saareen. ma sheegi karo qaabka uu ninkan u maqlay qaylada deeradan iyadoo ku dhex jirta godka dhexdiisa, balse waxaan ognahay haddii uusan isaga ahaan lahayn nolosheeda khatar ay geli lahayd. sacan oo ilmihiisa afsoomaali ahaan loo yaqaano dhagacaas ama weyn ayaa ku dhacay meeshan hogaahi, balse lamaano wadada mari ayaa caawin u sameeyay sacan iyagoona dhagacastii ka soo saaray goobta. shimbirkan gorkarkaahi ayaa xaalad xun galay kadib markii uu waayay wax uu cuno, balse ninkan lagu magacaabo Martin ayaa sameeyay xanaaneyn iyo daryeel badan sidii ugu soo laaban lahaa qaabkii ugu wanaagsaneed. shaqo wacan. haramcadkan ayaa madax wax la galay isagoona caawin biday dadka waana dhexbartag wadada iyadoona ugu dambeyntii madaxii wixii ugu jiray laga saaray. haddaba muuqaaladan kee ku soo jiitay dir ahaan halkaas ay ku joogaan muuqaalkeena. wabilaahi tawfiiq.